Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Ku soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijka COVID-19. Sidaan horay idinkaga ballan qaadnayba, waxaan qaybtan ku soo gudbin doonaa sheekooyin dareen iyo qiiro leh oo uu sababay cudurka COVID-19 ama coronavirus. Aan ku bilownay sheekada koowaad. Waa qorrax dhici ugu dambeeyay ama last sunset. dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Wuhan ee dalka China. Dr. Liu Kai ayaa xilli qorrax dhaca waxa uu go'aansaday inuu fuliyo wixii ugu dambeeyay oo uu rajaynayay bukaan qaba cudurka coronavirus-ka, taasoo ah inuu tuso qorraxda oo sii dhacaysa. Bukaankaas ayaa isla habeenkaas geeriyooday, taasoo ka dhigaysa in midaasi ahayd qorrax dhici ugu dambeysay ee uu arko. Warbixintan ayaa lagu daabacay wargeysyo badan iyadoo ciwaan looga dhigay qorrax dhicii ugu dambeeyay. Sheekada labaad waa dhakhtarkii u geeriyooday coronavirus balse ka badbaadiyay carruurtiisa. Kani waa sawirkii ugu dambeeyay ee Dr. Hadio Ali. Waa dhakhtar dhawaan ku geeriyooday caasimadda Jakarta ee dalka Indonesia isagoo daaweynaya bukaanno qaba cudurka koronaha. Tani waa booqashadii ugu dambeysay gurigiisa. Wuxuu taagan yahay ganjeelka kore, wuxuuna daawanayaa carruurtiisa iyo xaaskiisa oo ur u leh. Talow carruurtiisa maxaa maskaxdooda ka guuxi kara? Alla calool xumo weynaa. Dhakhtarku ma uusan rabin inuu carruurtiisa cudurkan ku daarto, sidaas darteed ayuu albaabka kore u istaagay sida qof marti ah. Taasi ayaa ahayd kulankii ugu dambeysay ee uu la kulmay carruurtiisa iyo xaaskiisa, oo waxa uu geeriyooday cudurka coronavirus. dhacdooyinka kale ee la yaab kale waxaa ka mid ah sawir laga qaaday askari iyo xaaskiisa oo dhakhtar ah oo labadaba ku jira safka hore ee dagaalka ka dhanka cudurka coronavirus. Guntii iyo gunaanadkii, waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo eebbaweyne kadib dhakhtar walba oo juhdi geliyey ama gelinayo la dagaalanka cudurka dilaaga ah. Rabbi haynaga badbaadiyo dhammaanteen. Aamiin. guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka maanta. intaan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.